waxay sheegeen inay qayb ka ahaayeen xulkii kubadda cagta ee gobolka Sool. waxay sheegeen in muddo 10 casho ah ay meehanaabayaan Hargeysa oo lagaga tagay gurigii ay deganaayeen. waxay sheegeen in xulkooda qayb ka mid ah oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Garowe magaalada laga ambabixiyay halka iyaga oo ka soo jeeda gobolkii ay u ciyaarayeen lagaga dul guuray gurigii xulku deganaa loona haysto kharashaadkii ay isticmaaleen. waxaanay sababta tani ku dhacday ay ku sheegeen ciyaartoy ka tirsan ciyaaryahanadii matalayay xulka gobolka Sool oo ku sugan Hargeysa waxaanu ka cabanaynaa oo cabashadeedu maanta tahay halkan u nimi in aanu ku hadalno khaladaad iyo gafaf lagu sameeyay ciyaartoydii xulka gobolka Sool iyo la xajeclo la kala xajeclaystay xulkii qaarna la ambabixiyay qaarna ay ku sugan yihiin guriga ay markii hore kaga sugnaayeen magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. xulkii in baa tagtay annagoo halkan joogna oo u diyaar garoonay inaanu ambabaxno baa waxa noo yimi maamulkii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee u xil saarnaa xulka gobolka Sool u xil saarnaa baa soo wacay bas baan idin soo diranay baska fuula waxba naloo sheegin wadan babaxaysan lama oran annagoo maalintii oo dhan halka ku sugnayn bahadaha ayoo kale Maghrib la yiri gaarigaas la fuulaya wala tagaya annagoon ogeyn annagoo transportation la siin annagoo ambabixin la siin annagoo ogeyn in xulka markii hore oo xagga ka soo baxayeen ganacsatada gobolka Sool lacagaha ay ururiyeen aan lagu fangareyn dad dana gaar laga leeyahay lagu fangareeyay markii aanu halkan nimin ambabixi dambe magaalada laga ururiyay madaxdeedii laga ururiyay wasiiradii gobolka u dhashay iyo ganacsatada gobolka u dhashay laga ururiyay dana gaar oo kala lagu qabsaday dad gaar oo dhil la soo galay oo lagu soo kireystay baa loo isticmaalay lacagtii annaguna maalintii toddobaad baan ku sugannahay gurigan Hargeysa kaga deganayn cid noo timin ma jirto maanta hadalkan waxaan ugu kalifay maanu jeclay inaanu hadalno ama aanu ka hadalno hawlo noocaas laakiin waxaan ugu kalifay markii maanta uu isduwihii inuu watay noo qaabilsanaa maanta airportka Hargeysa oo ka fuulay diyaarad baan ugu kaliftay inaan halkan ka hadalno xulka gobolka Sool cidii danaynaysa cidii la xajeclo kale de way aragtaa hawsha soo socoto bartayda baan ku sugannahay cid kasta ay qusayso oo madaxdii iyo wasiiradii oo ugu horeeyay Cabdiwaaxid oo ilaa 2010 intaan ku garaasaday hawlaha gobolka ku dhex jiray wax ka qabanayay in oo hawshan soo faragashtaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland wasiir boos aad iyo aad buu mahadsan yahay bardheeligii isagu noogu talagalay iyo wixii qarashka noogu talagalay si wacan bay noo soo gaadhayeen aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan leenahay wasiir ilaa madaxweyne cid kasta hawshan damqayso war gobolkii wasaaradnimo ma jirto annaga hadaan gobolka Sool lahay magaaladiina cabasha maanta bay cabashadeedu annaga la arkaa maalinta koob gobol baa wax laga maqlaa waan maleynaya gobolka Sool in badan baa ku sugan isboorti oo saas kale u tabanaysa qaar hawlo ka waaweyn tabanaya jira war dhalinyarada nahay war isboortiga gobolka nahay war dadkii birito dawladda aan ficilaa iyo dalkaba aan ficilaa muwaadiniintii u dhalatay baan nahay Soomaaliland hana laga qabto wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka u magacaaban waa dad qor isu dhiiba waa dad aan loogu talagalin inay dad maamulaan war ciyaalkii shalay la ciyaariyay weeye noo maamul karno anaguna ciyaal baan nahay si run baan ku sheegnaa isna waa ciyaal ismana maamul karno gobolka qof laga soo dhex doortay oo cadaalad lagu doortay oo kabtanada gobolka u codeeyeen oo aadna halka ka daawato oo mudnaan aad ku qaadato si aad gobolka markii hore u sharfaysay aad koobabka ugu qabanaysay waxaan ku leenahay mudane wasiir hawsha ilaahay baan kugu dhaarshay naga qabo ilmaha yar ee isduwaha noo uma qalmo isduwaha gobolkooda ee wasaaradda ciyaaraha ayay ku eedeeyeen in uu macaash iyo jeebuuxsi ka samaystay dhaqaalihii loo ururiyay xulkooda ee loogu talagalay inay baahiyahooda ku dabaraan inta ay ku jiraan tartanka ciyaaraha gobolada dalka baashaal lacagteedina ku soo baashaalo lacagteedii aad sababo ku tunto deebuutay annageena de waad aragtaan gurigaan deganay waanu qarinay waxaan isniri bal xaqi sare la kora oo astura waxa yaala ilaahay baa yaabin keenaya marka koowaad halkan waxaan ka bogaadinayaa wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland koobkii ay qabatay 14 gobol ay u qabatay sida ay munaasabada ay ugu qabatay iyo sida ay ugu tala gashay inuu u dhamaaday taas horta wax ilaahay lagu mahadiyo oo waa guul laakiin annagu maanta halkan waxaan u soo istaagnay oo aanu ka cabanaynaa ma aha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha guud ee Soomaaliland waxaanu ka cabanaynaa wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada gobolka Sool oo soo magacaabay wasiir Boosmire taasna wax badan oo qarsoonaaba waxaan u soo istaagnay maanta halkan inaanu ka sheegno kadib markii isduwihii gobolka Sool iyo sport kamid ah
iyo isboorti ka mid ah oo aan baxeen wadanka Itoobiya gaar ahaan dalka Addis Ababa xaalada dadka ay wada og yihiin ay wada ogsoon yihiin cid walba ay ka dheregsan tahay annaguna halkan aan ku sugnayn muddo isbuuca iyadoo la musuqmaasuqay qarashkayagii iyadoo la musuqmaasuqay lixjecladii isboortigii iyadoo la musuqmaasuqay dhan kastaba dhalinyartii isboortiga laga baalkeeyay markii ugu horeysay waxay sheegeen in ciyaartii gobolka Sool tartanka koobka gobolada Soomaaliland lagaga reebay ama ay kaga hadhay ay ahayd mid banaanka lagu sii heshiiyay waxay sheegeen in markii Qadnay Lambaza uu dhaawacmay uu soo dirsaday qayladhaan ah jihada ayaa iga lunsan mana sii wadi kara ciyaarta balse isuduwuhu uu amar ku bixiyay in xataa hadii uu meey noqdo aan goolka laga soo saarin Lambaza ciyaarta isagu ciyaari kari waayay halay bedel uu yiri bedel buu codsaday deemuuna miir beela qof waa bilaadan qof garoonka ku dhex miir beela kale laakiin qofka ku sii haysta gool hayaal waan wadanay bedela ka fiicnaado laakiin qof miir leh oo xun baa dhaama ama la in la aamino macquul ma aha qof bila miir dhibaatada ku timiya garoonka gudihiisa kaga timina cid qaadan karta dheesheeda markuu leeyahay siduuhu qof miir laba garoon ugu jiray qof miir la qof kubadda ciyaara iyo qof aqli la toona ka dhaadhicmayso qof miir le maamulkii waa wax loogu talagalay bay noqonaysaa in gobolka lagu reebo qof miir ku sheegay inuu miir leeyahay dad garoonka ku haysatay guul darro ka weyn ma jirto waxa markaa marmarsiiyay noqonaysaa markii gobolkii qof bila miir la dhaho goolkii uu soo sheegay uu soo gudbiyo codkiisa oo dhaho ma ciyaar karo miirkaygu ma joogo qofka ku sii haysta isaga ka jawaabay wuxuu ugu haystay waana guul darro gobolka oo dhan soo gaadhay waana wax taariikhi ah waxa ka dhacay meesha xagga qarashka ma aha xagga ciyaarta lafteeda in la idin musuqmaasuqay oo mesela tababari xulka oo maalintii ciyaartooy laga saaray qaar kale oo si Dad-madhedh idin ka badiso taasi ma jirtaa ma qabtaan dareenka waanu qabnaa waxa kaliifay inaanu qabno tababaraha ama coachka loo magacaabay gobolka uu haystay ciyaartooyda ha ku doodo ciyaartooy wacan ma soo xulan taasina isaga u taala laakiin turubku deeso isu galgalo midhihii fiicnaa xagga sare saarnaayeen dadkii xumaanay garoon gudihiisa ku jireen boortiyo dhaawaca oo yiri bedelana guduhu ku ciyaariyay idinka laftirkiinu cid walba indha qabtaa way dareemaysaa waxa meesha ku dhex jira isuduuhu been ka sheegi maayo garoonka ana ugu dhawaa uu yeeray siligu iga yeeray wuxuu igu yiri may maqlaysaa tababaraha inta u tagto waxa ku tiraa ninkaas haduu meed yahay xitaa goolkiisa ku jiro waanu qaadan waayay tababarina waa u geyn kari waayay isagina waa ka qaadi kari waayay maxaa ku dhex jiray isduwaha heerka gaarsiiyay awshiis garoonka dhexdiisana isduwihii Dad-madhedh iyo isduwihii gobolka Sool adduunka ciyaaraha wayna daawanaa marka ciyaar la bilaabayo wala isku doosin karaa bilado marka dhamaatana wala isku doosin karaa laakiin half time adduunka kama dhicin in bilad ama wax la isku doosiyo waa waxba ku dhex jira meesha ay garmaantii lagu kala bedesho half time-ka colaadii baa socota soo maaha bilow iyo dhamaad labadaba waa la soo hambaliyeen karaa laakiin ciyaar gudaheed cid hambaliye kala qaadatay wali ma arag waa wax nagu cusub isagaana ka jawaabay wuxuu ciyaarta half time-kii ugu hambaliyay sidoo kale waxay sheegeen in ciyaaryahanadii xulka gobolka Sool u ciyaarayay badankooda isuduwuhu uu lacag kaga soo iibsaday naadiye ka dhisan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland magaalada Laascaanoodna kubad laga ciyaaro ay ugu dambeysay 2019 si guura oo cad oo badheedha ugu tagay magaalada Garowe oo kagana soo kaxaystay ilaa 7 ilaa 8 isboortiya taasoo aan ku kalifin wax baahiya waxaan halkan baaq iyo fariin uga diray wasaaradda ciyaarta iyo dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland mudana wasiir waxaan ku leenahay isuduwaha aad noo soo magacawday ma isuduwa laga xukumo magaalada Garowe buu noqon doonaa mise wuxuu noqon doonaa isuduwe ka shaqeeya danaha iyo aayaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool ee loo soo idmay koobka gobolada gobol kasta waxa loo dhigay koob si tayada isboortigiisa iyo gobolkiisaba uu kor ugu soo kaco annaga waxa noogu dambeysay wax koob iyo wax friendly match 2019 bishii koob iyo tobnaad baa noogu dambeysay halkan anigu maanta waxaana isboorti intii ka soo dambeysay isduwaha Seer Fuaad uu ka wareegay xilka magaalada dhan ee Laascaanood 3 game baa lagu ciyaaray marka xaqiiq laga hadlo cid walba way ogtahay iyadoo xitaa garsoor loo waayay ba waxa qabtay balaayarin kamid oo waliba aan kamid ahay aan kooxaha u qabtay iyadoo jaanisada wasaaradda ciyaaraha ay dayacday anoo isboortiya oo aan isu hawlay gobolkaygii oo aan u qabtay garsoor
anugu da garsoor mana noqon karo ciyaartooyna ma noqon karo halkaana waxaan isku hawlay waxa weeye shaqadii laga dayacay ciddii maamulka ahayd ee suduwaha ahayd xilku ka saarnaa inay isboortigana ay ka warhayaan koobkana ay si habsami leh oo qurux badan uga qayb qaataan may muujin may tusin gobolkana si lixa jecla darre kaga jirto bay buu haray oo aanay tusin wax lixa jeclaa oo gobolka kaga jirta isboortigii gobolka Sool matalayay 24 qof bay ka koobnaayeen 8 qof mooyaane inta kale waxay ahaayeen dad garoowa laga keenay oo lacag lagu soo kharash gareeyay oo $1,000 iyo $500 lagu soo kharash gareeyay kuwii la soo kharash gareeyay ee aan muwaadiniinta heer Soomaaliland ahayn ee aan mudnayn inay gobolka Sool ay matalaan baa haddana la ambabixiyay oo si qurux badan la ambabixiyay kuwii mudnaa inay ciyaaraan oo gobolkooda ay matalaanna halkan ay ku sugan yihiin wax la jeclaana lama tusin wax ogaanshiyaana lama tusin halkaas ku dayacan yihiin waxay ku ambabaxaan bay waayeen kharashaadkii magaalada laga lahaa wax iskaga bixiyaan waxay ka jawaabeen in gool hayahoodii Lambaza ee Addis Ababa xaaladda caafimaad loogu qaaday ay ka daba fooriyaan oo hadalkoodu xaalad ku xumeyn u yahay waxay yiraahdeen Lambaza iyo xulalka gobolada kale ayaa koobka gobolada Soomaaliland wada ciyaarayay calaashan gool hayahayagu mucjiso birlab waa su'aal fiican oo muhiim ah boortaani horta anaguna matalayay gobolka Sool buu matalayay raggan isugu dhaweyn gobolka Sool buu kamid ahaa boortahanna ma aha boorte aanu mucaaradi karno ama ka soo horjeesan karno wuxuu ahaa legend gobolka Sool ciyaartooyda ugu qaalisan xulka gobolka Sool buu ahaa laakiin anna sharci baan leeyahay kuwana sharci bay leeyihiin isaguna wuxuu leeyahay sharci iyo nidaam wasiirka dhalinyarada ciyaaruhu uu yimi wuxuu yiri wax allaale wixii boortahan uu u baahan yahay iyo wax allaale wixii kifaynayaba oo aniga dhakadaydu yiri uu ku mahadsan yahay wasiirku annaga laakiin isaga annaga ahaan waxa naga mas'uulahay isduwaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Sool isagu nooma iman nagama soo qayb galin rag baa xilkaas saarnaa in ay hayaan labada gelinba oo isboorti qaar ku jireen oo labada gelinba kala qaybsanayay waqtiga dhakhtarka ku sugnaa markii dambana dad gaar ah loo xil saaray isduuhu kuma jirin dadkii loo xil saaray ee haynayay annagu noo xil saarnaa annagina wanaga halka joogna ma aha labaasa qof aanu ka soo horjeesan karnaa oo mucaaradi karnaa waa legend gobolka kamid ah oo ciyaartooyda ugu qaalisan 90% isaga gobolka halka soo gaarsiiyay maanta labaasa iyo gobolada kale wada ciyaarayay baa la oran karaaba hase ahaatee waxa baaq u diranaa mas'uuliyiinta ku dhaqan gobolka Hargeysa in dhalinyaradoodii ka soo bixiyaan meeshii ugu dhaqsaha badan maadaama uu isduuhu uu gabay shaqadiisii waa isduuhu wali dhalinyarada lama yaabali anigu maanta waayo wuxuu ahaa shalay 19 in uu la ciyaaray sport garan ku xidhnaa hase ahaatee waxay noqotay wasaaradii in qofkii ka tagay uu qof kale ka soo dhoo qofkan ii sigeeyay wasaaradii wasaaraddu marka qofka la keenayo waa in loo eegaa aqoontu uu leeyahay cilmigu uu leeyahay xaqu ka soo shaqeeyay laakiin ma aha anoo maanta isduuha marka ka tagay bari mid ilmaadeernahay inaan soo qabto meeshii dhigo waa khalad waa wax yaani waxa weey in sportka 16 sportka sanada ka jirto isku yeero in marka la soo magacaabayo ayaga codkooda uu ku yimaado qofka la soo dooranayo qof aqoon ku badawle qof ibada ku soo dhex jiray qof khibrad leh qof maamuli kara management dhalinyaro meel la soo keenay maaha ciyaar intaasoo cid la maamulasa wax ciyaar maaha management-kuna wax la barto moogtahay laakiin qof aan يعني maamul iyo maareyn mid aan garanayn oo يعني waxba la kala hagaajiyo aan garanayn in يعني wasaaraddu iska soo magacawdo bay waayeen cid walba khusayso oo madaxda gobolka Sool ka soo jeedaya haduu yahay gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Baashe iyo haday tahay wasiirka warfaafinta iyo haday tahay wasiirada kale ee khusayso ee gobolka ka soo jeeda waxaan leenahay eega oo hoos u eega ciyaartoydiina weeye ciyaartoyda la bixiyana ma aha ciyaartoy laascaanadu dhashay oo ciyaartoy garoow ka yimi oo Puntland haddana ka qayb qaadanaya goboladoodii ciyaarahooda ka qayb qaadanaya danaynna u hayay ma aha gobolka Sool kuwana danayn iyo in la hoos loo eegayo in imika lamba bixiyo mudan isduuhuna uu ku fashilmay in uu dhalinyaradiisa iyo gobolkiisa meel ka soo saaro isduuha eedahan loo jeediyay laftiisa oo aan isku daynay inaan xiriir arrintan kala sameeyno ayaan noo suurta galin isagoo wadankana safar kaga maqan kuna sugan magaalada Addis Ababa sidoo kale waxaan isku daynay inaan arrintan wax ka weydiino wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland iyadana noo suurta